السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تلي وانك سلام يا اسكورن ساتاي. الحمد لله رئيس الوزراء في عنا إلى أن نقدر. waan fiicannahay walaalow annaguna runtii waa marka koowaad waa idin mahad celinayaa adiga iyo ciidanka iyo deegaanka intaba waa idin mahad celinayaa dadaalka aad samayseen iyo geesinimadiina iyo sida aad wadankiina u difaacdeen ilaa haddana u difaacaysan waad ku mahadsantihiin marka labaadna waa idin hambalyeynayaa runtii waxaan idin leeyahay hambalyo waad adkaateen waad guulaysateen Soomaali oo dhan ayaa idin fiirinaysa runtii kudayasha aad mudan tihiin waana la idinku dayanayaa taariikh baad samaysteen aad iyo aad mahadsan tihiin waxaan ballan qaadaynaa dawladdu iyo shacabka intaba waa idin garab taagan yihiin gadaal iyo horay iyo dhinac kasta waa idinka jiraan nimankaasna waa soo afjaraynaa inagoo iswadana hadii Ilaahay yiraahdo oo wada shaqeynayna waxaan rajaynayaa ciidankana sidaas adiga gaarsiin waad igu salaami waan idin garab taaganahay waad guulaysateen waad adkaateen waad jihaadaysaan mujaahidiin baa tihiin niyad wanaag halala yimaado dalka iyo dadka iyo diinta idinka difaacaya cadawgana waad ka difaacaysiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin runtii inaan intaan dhahaan idin rabay inaan idin ballan qaaday inaan idin garab taaganahay waan idin wada imaan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo one by one marka ciidanka iyo saraakiisha iyo dhamaantoodna igu salaama khayrna waa idin rajaynayaa Ilaahay idinkiis oo ma soo tahay raiisul wasaare hal mid ayaa ka codsanaya meel walba horta waa la xureeyay markaana aad u cabsi badan oo dabada looga jiro aniga jihaadaan nahay waxaan ka codsanayaa in meelaha la qabtay dadka dad masaakiin ah joogo oo gargaar la soo gaaro intaas horta ka codsanaya qorshaha dawladdu waxa weeye in degmo kasta iyo tuulo kasta la xoreeyo biyo iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo station police-kii iyo maamulkii oo isku xiran iyo hadii ay dib u heshiisiin deegaanka u baahan yahay in ayadana loo dhameystiro wasaaradaha qaabilsanna waan farnay oo waan amarnay hay'adaha caalamka oo inad kaalmeeyana ayakana hadeertaan la fadhiyay dhowr daqiiqo ka hor oo aan arinta dhamaysanay waa diyaar amniga mar hadii la sugo waxa ku xigay waxa weeye waa in shaqadaas la qabo dawladda u taala annaga iyo Hirshabeelle iska kaashanayna dawladda way ka go'an tahay waana ka shaqeynaynaa Ilaahay idinkiis taas waana lagu ogyahay hadii Ilaahay raawo shaqadan aad baad u mahadsantahay ما شاء الله رئيس الوزراء ما سنتهي أنا ما أرتيش هو هم بليننا أنا قلنا إن تاجرتها إن أمر الله مكي وقطعت أكيد قبل كذا وهو أنا هذا ده نوع برضه وهو إنه كاسوينا بدي ذكره تذكر أو مساكين تا أو طعام تذكر اللي بانك تذكر لما ده حبيب جالسين فأنا إن ما أرتيش تذكر أو سيقول متقدر أدو شو جالسين الدنيا غير وكل ذلك أنا في كائن نفسه أنا ما هو waa annagana waa horeynaa Ilaahay idinkiis hay'adda maareynta musiibooyinkana waa gaarsiinaynaa cuntooyin baa la soo gaarsiin doonaa insha Allah horeyna waxba loo gaarsiiyay haddana waa la soo gaarsiinayaa hawshaas waa ka shaqeynaynaa idinna hawshiina qof walba meeshiisa aan laga soo dhicin annagana meeshana naga soo dhici maayo hadii Ilaahay aad baad u mahadsantihiin guulna waa idin rajaynayaa igu salaama dhammaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee jihaadka ku jira igu salaamo ما شاء الله ما سنتها وكل سلام ما سنتها رئيس ما سنتها رزار وما سنتها operation كان هرت حلم باللوني هذه ساك ساعات سوح باللودي دول إلى 7 كيلومتر جارة يدركيس اللي عن كهول قلنا إلى 7 ميلود عن كويرناي وحن كبلوني جيس كمل يراهدو بسق شروف للي يراهدو وعدد كبير كوادن 2 كيلومتر جرت ماشى إذا ماذا كسرين waxay ciidamadaas u tageen meel ay deganaayeen oo dacwo qoran la yiraahdo oo ahayd meel hawda oo beegaga ay u xiraayeen oo ciidamadooda ay deganaayeen ayaad u deganaayeen meeshaasna waa ka saarnay kadibna ciidamo kale oo baxda toos uga baxay ayaa waxay tageen deegaan la yiraahdo Dhuumoodle oo ah meel gudaha weyn oo buur hoosteeda oo ayadana ay ku gamban jireen qalabka isgaarsiinta oo dhulkaan oo dhan ay isticmaali jireen oo u yaalay iyadana waa ka carar waa gartay haddana waxaan rabnaa insha Allah taala markii hadda maaragtay hawlahan aan dhamaysanay inaan qayb meel yiraahdo oo maxkamadda ugu weyn oo labadan gobol dadka ay maaragtay ku xukumi jireen ah inaan wajahno hadii Ilaahay yiraahdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام قدومي وانكم سلام iska waran seetahay aadi aad alxamdulillah waa ka qaaday aad fiicnaa raiisul wasaare boqolkiiba boqol alxamdulillah degmo baxdo la yiraahdo oo geesinimo ku caan baxday oo runtii Soomaaliya u horseeday
inay guulaysato ayaad guddoomiye ka tahay marka adiguna geesi baa tahay mar haddaad guddoomiye ka tahay haddana aad safka hore ku jirto waan ku hambalyeynayaa number 1 horta de waxa weeye waa mujaahidiin jihaad baad ku jirtaan dhammaantiin allah idinka aqbalo amiin amiin number 2 waxaan rabaa inaan aan ballan qaado dawladda Soomaaliyeed waa idinla jirtaa garabkiinay taagan tahay dhinaciinay taagan tahay waa ka go'an tahay dagaalkan in la wado oo u socdo oo dalka lagaga xoreeyo oo diinta ay kharibeen lagaga xoreeyo oo khawaarijtaas meel la saaro ummadda Soomaaliyeed laga xoreeyo dawladdu waa ka go'an tahay waana idin garab taagannahay ma sha Allah aadiya waad ku mahadsantihiin naftiina aad horeysaan xoolihiina aad horeysaan shacabka Soomaaliyeedna dhammaantiis idinka idin fiirinaya waana idin daba socdaa waa idin garab taagan yahay meel kastuu joogo kii aan garabkiina ka bilaabinna meeshii uu joogay uu ka bilaabayaa marka waxaan leeyahay Soomaaliya guul baa u soo hoyatay wiilal baa inaga shahiidi doona horeyna boqol bay inooga dhimanayeen laakiin inagoo khawaarijta la jihaadayna midka shahiidaya ha ku shahiido runtii waa guul idinkaana horseed baad ka tihiin waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis in Soomaaliya si degdeg looga wada xoreeyo waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo waxaan rabaa inaan idin hambalyeeyo waxaan rabaa runtii inaan idin cadeeyo inaan idin garab taaganahay wasiir al-Cadaala waa idin la joogaa kuwa kalena way idimaan doonaan annaguna waan imaanaynaa ilaahay idankiis hadii ilaahay yiraahdo xildhibaan saabirna uu nala joogaa ra'iisul wasaare aad iyo aad u mahadsan tahay Allah ku sharfo runtii inagu de waxaan isku xilqaanay inaan maaragtay cadawgaas soo jireenka xukuumadda ummadda Soomaaliyeed aanu la tacaalno deedna haddii maanta dawladda Soomaaliya ra'iisul wasaarihii waqtiga noogu jiro ballanqaad noo sameeyayna aad iyo aad bay noo farax gelinaysaa haddii aan wax yar dib ugu laabano deegaamo fara badan ayaa saaka la maray oo la xoreeyay ilaaha ku mahadsan ilaa iyo 10 tuula saaka la maray oo la xoreeyay marka ciidanka ka deegaanka iyo kan dawladda guud ahaan iyo gaar ahaanba niyadooda aad bay u wanaagsan tahay way ku faraxsan yihiin inay maanta la dagaalamaan khawaarijtaas waxay ku faraxsan yihiin in dawladdii Soomaaliya oo wasiiradii iyo xildhibaanadii ay soo dirtay ay garab taagan yihiin dagaalkii hogaaminayaan marka insha Allah moraalka iyo ummaddu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay xildhibaan Saabir ra'iisul wasaare waa mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa dhiirigelinta iyo taageerada iyo waxaan ku iraahdaa shaqada adag oo dawladdu ay halkaan runtiisa ka wado annaguna hadii ilaahay waan bin iyo waxaan maaragtay la daba joognaa wixii kaleeto tabarteen ah oo aan ka caawin karno shaqo fiicanana la qabtay runtii sidaas uu gudoomiyuhu ku sheegay weeye insha Allah ta'ala waxa dhimanna waa soo afjari doonaa biidnillaahi alkariim xildhibaan aad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa xildhibaanada Soomaaliyeed inay kugu daydaan waxaad u tahay hormuud adiga hadda waxaan la hadlayay Malik oo asagana Hiiraan safka hore fadhiya adigana halkaas safka hore ku jirtaa waxaan runtii soo jeedinayaa codsanayaa xildhibaanada Soomaaliyeed inay ku daysadaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay xildhibaan hormuudnimadaas aan kugu aqaan runtii waanad ku jirtaa waxaan rajaynayaa in Ilaahay ajri iyo thawaab ka siiyo hada dadkaagiina waad xoreynaysaa matalaada dhabtii waa midaas aad iyo aad baad u mahadsan tahay xildhibaan kulligiina waan idin ducaynayaa Allah idin barakeeyo